إلهي سبحانه وتعالى قرآن وحكوت المام يا أمد النبي محمد هي كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الله سبحانه وتعالى وحكوت المام يا أمد أنينا يا هيد أمدي أخير بدنيد إلهي سبحانه وتعالى ضدك وصوصاري خطابك كان يوحو كدعي النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي صحابة ديسي أو أها قمدي أما هلكي يقصر الرئيسي ضد طبقة أما فلية وحيجي حقا لك يمي سبحانه وتعالى وحي هاي ضدك تصمد الربط أكبحيي ورك الله سبحانه وتعالى daduu ilaahay raalli ka noqday qaabkay u dhaqmeen iyo siday u noolaadeen markhaatigaana ilaahay quraanka ugu furay inuu raalli ka yahay sidan ay u dhaqmeen ama ay u noolaadeen waa kooxdu nabigu calayhi salaatu wasalaam ku tilmaamaya khayrukum qarni ummadda muslimiinta waxa ugu khayr badan buu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam qarnigaygii ama dadkii isaga la noolaa waxaynu isku daynaa markaas inaynu wax ka tilmaamno qayb ka mid ah noloshii ay dadkaasi lahaayeen rasuulullaahi muxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh iyo saxaabadiisii kiraamka ahaa ee sharaftida mudnaa qaybta aynu rabno inaynu ka tilmaamnaa waxay tahay cibaadada alle la caabudo subxaanahu wa tacaala iyo sida ay ugu dhadhamaysay ama macaanka ay u lahayd oo aan dareemayno inay tahay waxyaaba u baahan in dib loo soo nooleeyo cibaadaadkii ma tegin qayb ka mid oo badan dadku uu sameeyaa salaada sidii baa loo tukadaa soonkii waa la soomaa xajkii waa la sameeyaa zakadii waa la bixiyaa wardigii uu nebigu ka tegay calayhi salaatu wasalaam waa la akhriyaa laakiin waxaan leenahay waxa ka gedisan siday dadkaasi u dhadhamin jireen ama cibaadadaasi macaankay u lahayd waxaa laga yaabaa dad badan oo muslimiini caqiid ahaan inay ku qanacsan yihiin waxaanay cibaadadii ilaahay u faray inay tahay lana imanayaan cibaadaadkaasi bimujarad inay fuliyaan ilaahay awaamirtiisa subxaanahu wa tacaala waxaa laga yaabaa inay markaa dad muslimiinoo badan ay ku tahay takaaliif ama culays uu u baahan yahay qofkani inuu iska reebo ilaahay baa faray salaad inaan tukado salaaddii waa inaanu tukadaa ilaahay baa faray inaan soomo waa inaan soomaa waxaa laga yaabaa dad badan oo innaga inaga mida markaa inay culaysba ku tahay barhkeen waxaa laga yaabaa inay u tahay un taraaniim weedho laga namnamnamnamnamsiiyo inuu qofku intuu cabbaar meel istaago markuu salaad tukanayo waxoogaa uu akhriyo mararka qaarkoodna uu kalaba garan waayo wixii uu akhrinayay talow faatixadii miyuu akhriyay ma rabbinaas buu ka bilaabay muu rukuucay imisu ragcadood buu marayaa oo weliba aan dee mar iyo laba ahayn insaanka mar kasta waa iskaga dhacdaa insaan aan nisiyaan ku dhicini ma jiro ma lihin yacni kuguma dhici karto laakiin lagaba yaabo dandana takina iskaba noqotoba dhaqankii qofkii caadiga ahaba ina iska soo baxdo waxaynu rabnaa inaynu tilmaamno markaasi siday u arki jireen saxaabadu cibaadadatan iyo nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo dhadhanka gaara ee uu samaynaysay walidalik buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان صدح قفك كسو قبو النبي عليه الصلاة والسلام حديثك بخاري مسلم كويا لي وحو هلي معانك ولها إيمانك حديثك وحن وقت هذا لفظك حلاوة الإيمان نبي وحو الشيخ عليه الصلاة والسلام إن معان لي هي macaanka jasadiga ahi jidhka marka la eego carabka macaanka dhadhamiya laakiin carabka dhadhamintu macaanka dhadhamiya waxa ay ku xidhan tahay siduu u fayo qabo
hadduu carabkaagu si wanaagsan u fayo qabo dareemayaashaaduna si wanaagsan u soo jeedaan maskaxdaaduna respondka jawaabta si wanaagsan u bixinayso dhadhankaagu wuu fiican yahay haddii laakiin khalal uu kugu jiro isagoo carabkii kugu yaal oo maskaxdii kugu taal oo dareemayaashii kugu yaaliin haddii khalal kale jidhka uu kaaga jiro waxaa la arkaa inaanu macaankaasi macaankiisii rasmiga ahaa dhadhamin sababta keentay inaanu u dhadhaminna ma aha carabkaan carabkii ahayn ma aha carabka wixii wax dhadhamin jiraan ku oolin ma aha maskaxdii ka jawaabi jirtaan ku oolin laakiin waa khalal dheeraadaa jira maalan qofku markuu xanuunsado afkun baaba ku qadhaadhaanaya wixii macaanaayoo dhan markaad dhadhamiso macaan dhadhami maayaan jidhkiina wax badan iskama bedelin lakiin waxa isbedelay waa maxay waa shay zaa'ida kugu soo kordhay cibaadadu waa sidoo kale baynu leenahay macaan bay leedahay uu dhadhamiyo qofku laakiin macaanka kan waxaa inta badan dhadhamisa ruuxda qofka insaanku waa laba qaybood waa qolof jidh ah iyo ruux ku jirta ruuxdaasi ilaahay wuxuu ku tilmaamaya qul iruuxu min amri rabbi yani ruuxdu inay ka mid tahay ilaahay subxaana wa tacaala arrinkiisa oo aan cidi waxba ka garanayn laakiin waxyiga uu alla soo dejiyey subxaana wa tacaala waa ghadaa'i ruux ruuxda tan wixii dhadhanka iyo macaanka u yeelayey waa waxyiga kan way kobocdaa oo way barwaaqowdaa waanay liidan kartaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkan markaasi wuxuu leeyahay saddex qofka ku jira wuxuu helay iimaanka macaankiisii iyo dhadhankiisii saddexda tani waa maxay an yakuuna allahu warasuuluhu axabu ilayhi mima siwaahumaa ilaah iyo rasuulkiisa in wax kasta lagaga jacayl badan yihi inuu dadka u jecel yahay ilaahay dartii uun qofka muslimkee kale walaalkiiya inuu u jecel yahay bimujarad inuu qofkan xidhiidh la leeyahay alle subxaana wa tacaala iyo inuu qofku u necab yahay gaalnimo inuu dib ugu noqdo sida uu u necab yahay naarta inuu ugu dhaco waxaan leenahay markaas cibaadada macaankeedu dadku way ku kala gedisan yihiin waxaanay ugu kala gedisan yihiin aqoontay ilaahay u leeyihiin iyo cabsiday ka cabsanayaan inta ay ku kala gedisan yihiin aslan cibaadada waxyaabaha keena waxaa ka mid ah kow ilaahay subxaana wa tacaala keligii isagaa cibaadada xaq muta waa xaqu llahi cala alcibaad laba kamaaluhu fii asmaa'ihi wa sifaatihi wa afcaalih ilaahay subxaana wa tacaala kamaal dhammaantii buu leeyahay insaankuna sidiisaba wuxuu maftuur ku yahay waxa insaanka ku abuuran dhammaystiranka inuu jecel yahay xataa waxa kala daaya insaanka caadiga ah ee shay aad ugu caanbaxe ee waxaa bini aadam kale faa'iq kaga noqda dadku way ku jecel yihiin bimujarad inuu waxaasi qofkaasi uu ku yahay qof aad ugu fiican waxyaabaha alle subxaana wa tacaala lagu jecel yahay markaasi waxaa ka mid ah kamaalihi ثاني الأمر وحيابها كينا وحا كمدا إنه إحصان بدني waxaan idhaha labadan shay waa labada shay ee keena qofku cibaadadiisu inay dhadhan samayso markuu ilaahay subxaana wa tacaala macrifo fiican u yeesho iyo marka uu garto wuxuu ilaahay nimco siiyey qofkan bini aadamka waxaad nimco haysato marka aad fahamto markaas bay noqonaysaa cibaadada inaad u dareento shukri inay tahay iyo inaad dhadhamiso ay dhadhan kuu yeelato nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamayay markuu arkay duul cibaadaadkii uu samayn jiray ee la yaraato oo isku dayay inay ka tiro badiyaan maa baalu aqwaaman yatanazahuuna can shay asnacu fawallaahi inii la aclamuhum biاllaah wa ashadduhum lahu khashya waa maxay duulkani buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam waxaan anigu samaynayey ka tarafucaya iska daynaya ilaahay baan ku dhaartay aniga ugu aqoon badan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam alle uguna alla ka cabsi badan yacni ilaahay aqoontiisu iyo cabsidiisu waa isku xidhan tahay waxaynu rabnaa markaa inaynu wax ka yaro ogaanno dhadhankaas ay cibaadadaasi u lahayd saxaabadu siduu u ekaa culamaa'i taariikh markay ka warramayaan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii jiilkaasi markay ka warramayaan waxay tilmaamaan waxay ahaayeen baa la yidhahaa fursaanun binnahaar
ruhbaanun billayl waxaa lagu tilmaamaa waxay ahaayeen rag maalintii nolosha farisiin ah ka qayb qaata nolosha dhammaanteed jiljileec yar aan lahayn macaarik alxayaa ama mid xogsi ha noqoto ama jihaad ha noqoto ama waxay doonto ha noqotee macaarik alxayaa dad ka qayb gala bay ahaayeen habeenkiina waxaa lagu tilmaamay inay ahaayeen ruhbaanun billayl raahibiin dad ilaahay u go'a subxaana wa tacaala habeennimadkii in badan bay laga warramaa markaa taariikhdoodii iyo futuuxaadkoodii iyo islaamku wuxuu soo kordhiyey laakiin maanta waxaan isku dayaynaa inay saacaddeenani noqoto saacad gaar ah oo ah saacadda ilaahay ku xidhnaayeen iyo siday u ekaayeen inaynu wax ka ogaano caaisha ridwaan ullaahi calayha ayaa xadiidkii muslim ku yaallay waxaa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebigu markuu guriga joogo muxuu sameeyaa baa lagu yidhi maa kaana nabiyu sala allahu alayh waali wasalam yasnac fii beyti guriga muxuu qabtaa waxay tidhi kaana yakuunu fii mihnati ahli reerkuu la shaqeeyaa bay tidhi markuu guriga joogo dadkuu ka mid iyo reerkiisa ayuu la shaqeeyaa laakiin bay tidhi faidaa xadarat asalaa yatawada wayakhruju lisalaa salaaddu hadday wakhtigeeda gaadho wuu baxaa waa weysaystaa dabeetana salaadduu baxaa waxaan rabnaa inaynu wax ka ogaanno saacadda tan uu salaadda u baxo iyo siduu u ekaan jiray waxaan rabnaa inaan wax ka ogaanno saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam jeclaaday ee la noolaaday ee ku ta'auray ee uu raadeeyey ee noloshiisa la qaybsaday ee qur-aankoo daraya ilaahay kala kulmay subxaana wa tacaala sidii ay u dhadhamiyeen iyaguna cibaadada tan amase ay u arkeen waxaa kaaga filan nebiga calayhi salaatu wasalaam siday ugu ta'aurayeen saxaabada tani in waaxid minhum xandala saxaabigii la odhan jiray inuu yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam isagoo u imanaya inuu leeyahay waa xadiidka wada garanaysaane naafaqa xandala xandala soo baxay isagoo le xandala wuu munaafaqoobay abibakar baa la kulmo wuxuu yidhi waa maxay waxaad ku hadlaysaa maxaa dhacay wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markaannu la joognana si baanu nahay kaanna jannadii iyo naartii iyo wixii o dhammi ra'yulcayn uu yahay marka aanu xaafadaha tagnay ee dumarkii iyo carruurtii iyo xoole iyo wixii dhex gallana waxbaa iska kaaya beddela waxaan rabaa inaynu ka warranno saacadday nebiga la joogaan siday ahaayeen haddaba in badan baynu saacadda ay jihaatamayaan ama xoolo dhaqayaan ama kan ka warrannay saxaabiga kan isagii abibakar intaysa soo raaceen bay nebiga u yimaadeen calayhi salaatu wasalaam dabeetana warkii bay u sheegeen dabeetana maxaa dhacay buu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegay marka ay la joogaanna inay nooc yihiin marka ay ka noqdaanna inay si kala noqdaan wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsii biyadih an low taduumuuna calaa maa takuunuuna cindii wafi اdikr lasaafaxatkum اlmalaa'ikatu calaa furushikum wafii turuqikum walakin ya xandala saaca wa saaca wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaaha naftaydu gacantiisa ku jirtaan ku dhaartee haddaa ku sugnaan lahaydeen sida aniga markaa ila joogtaan aad tihiin sidaasuuna haddaa ku sugnaan lahaydeen oo noloshiinoo dhammi nooca ay noqon lahayd malaa'igtaa waddooyinka idinku salaami lahayd buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo furshaantiinna korkooda laakiin xandalow saacad iyo saacad baa loo baahan yahay saacad iyo saacadda tan dadka badh siday u fahmaan maaha يعني ساعة في الحرام وساعة في حلال ما وساعة في المباحات أما مشاغل الدنيا هي ساعة قفك أدونك وكب حدا ما أنت يتبقوا يلابه أو إلهي وبحه سبحانه وتعالى يا آخرة ساعة أدونك ما أنت ومسكح دي سكبحه حين سويدين إن مركز ساعة وساعة نلشوا ذا كم إذا سيدا وكاية إنك سملين هي ساعة داس نلشوا نردمي ما ساعة الأخرى با بس ساعة نوا كمت qofka muslimkaa waxaa laga rabay labadan saacadoodba inay noloshiisa ka mid ahaadaan saacad uu adduunka iyo shawaaqishiisa oo dhan ilaabo saacad cibaadada iyo dhadhankeedu uu muuqdo saacad uu rabbulcaalamiin la hadlo la munaajoodo saacad uu ilaahay la hadlo subxaana wa tacaala saacad uu raxmaanu raxiim baryo saacad uu ilaabo adduunka iyo liidashadeeda iyo intay leekayd saacad ay u muuqato jannada iyo qusuurteeda iyo nimcaday lahayd saacaduu ka fakaro xadiidku nebigu laha calayhi salaatu wasalaam
waxaan ka yaabay buu nebigu yidhi janno kan doonaya ee hurda iyo naar ku ka cararaya oo hurda yacni labadaa midna ma seexda buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam nin janno doonayaana waxa ku jiruu og yahay oo kama seexdo nin naar ka cararayaana waxay leedahay buu ogyaho ma seexda buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam yacni labadani hadday qofka maskaxdiisa degaan wuxuu nebigu tilmaamayaa hurdaduba inay yaraanayso aanay suurtagal ahayn waxaynu rabnaa markaasi saacaadkani nolosheenna ma ka mid yihiin mise waxaynu u baahnay inaynu iminka nolosha dib u tajdiidinoo cusboonaysiino saacadaha kan ku darro saacaadkan siduu u ekaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka ibnu mardawey iyo ibnu abi xaatim iyo ibnu xibbaan ba saxiixiisa uu ku warinayo calaamat alalbanina silsilati saxiixa uu ku soo saaray waxa uu leeyahay caطaa ibnu abi rabaax ayaan rajaynaya inuu yahy aniga buu yidhi iyo ibnu cumar cabdillaahi ibnu cumar iyo cubayd ibnu cumayr ayaa isa soo raacnay buu yidhi waxaan idhi buu yidhi nakeen aan caaisho soo booqannay caaisha ridwaan ullaahi calayha ayaanu u nimi buu yidhi markaanu u soo gallay iyadoo xijaab uu noo dhexeeya annaga iyo iyada ayaa waxay caaisha hadalka bilowdo waxay tidhi yaa cubayd maa yamnacuka min ziyaaratina cubaydow maxaa kuu diiday inaadna soo booqbooqato yacni muslimku inuu isa soo booqdaa buu isku leeyahy marka maxaad noogu iman weydeen ee noo soo booqan weydeen ayay caaisha ku tidhi ridwaan ullaahi calayha cubayd baa u jawaabo wuxuu ku yidhi waxaan kuu soo booqbooqan weynay qowlu shaacir zurgibban tasdud xubba gabayaa carbeed gabaygiibuu soo qaato wuxuu yidhi nin carbeed baa gabaygiisii wuxuu ku yidhi marmar booqashada samee kalgacalkaa badanaya yacni qofka haddaad mar kasta dul taagnaato kaanama kalgacalkiinu uu liidanayo qowlkaa shaacirkaan xasuustay buu leeyahy zurgibban tasdud xubban cabdillaahi ibnu cumar ayaa isna meesha marayo dadka soconaya ka mid ah ibnu cumar baa wuxuu yidhi darna akhbiriina biacjabi maa ra'ayta min rasuuli illahi sala allahu alayh waali wasalam kaftankiina naga daaya oo caaisha ay waxaad nooga warrantaa buu yidhi wixii kuugu cajabta badnaa ee nebi moxamed ka aragto salawaatu ullahi wasalaamu calayh caaisha markii nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam way oyday fabakat wa qaalat kullu amruhu kaana cajaba caaisha intay oyday bay waxay tidhi nebi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh arrinkiisoo dham isaga cajiibun buu ahaa kadib ayaa waxay tidhi habeenkaygii buu yimi ataanii fii leylati xataa masa jildu jildi habeenkuu hoyaatinka gurigayga lahaa buu yimi bay tidhi ilaa iyo jidhkaygu uu jidhkiisa taabtay markaasuu wuxuu igu yidhi bay tidhi caaisha nebigu calayhi salaatu wasalaam intuu ila hadlay buu wuxuu igu yidhi bay tidhi darinii atacabad lirabbi caaisha ay caawa maad iska kay dhaafi aan ilaahay u cibaadaysta buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam waa habeenkeedii gurigeedii buu joogaa jidhkoodaa istaabtay waxaanuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam caaisha ay caawa maad iska kay dhaafi aan ilaahay u cibaadayste caaisha waxay tidhi wallaahi innii la uxibu qurbak wa innii uxibu an tacbuda rabbak wa fii riwaaya wa uxibu hawaak caaisha waxay tidhi ilaahay rasuulkiisiiyow dhowaanshiyahaaga waan jecelay ilaahay baan ku dhaartee waxaan kaloo jecelahayna inaad ilaahay caabudo oo cibaadadaad doonayso inaan kuu yeelana iyana waan jecelahay bay ku tidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu kacay dabeetana qarbad biyo oo guriga sudhan ayuu hoosta ka furay wuu weysaystay biyo badanna kumuu weysaysan bay tidhi dabeetana salaad buu isu taagay markuu nebigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh salaadda isu taagay ayuu oohin bilaabay bay leedahay waa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wuu ooyey bay tidhi ilaa iyo ilmadii ay gadhkiisa qoyso ka dareertay riwaayaadka qaarkood waxay leedahay xataa balaqat xiqaway oohintii nebiga calayhi salaatu wasalaam wejigiisa ka soo dareertay guntigiisay gaadhay ay riwaayaadka qaarkood leeyihin siduu nebigu u taagnaa calayhi salaatu wasalaam oo u ooyayey dabeetana wuu sujuuday bay tidhi xataa balla alard ilaa iyo uu dhulka qooyey nebigu calayhi salaatu wasalaam oohin daraaddeed salaaddii siduu u ooyayey buu dhammeeyey dhinacuu u yaro jiifsaday bay leedahay ilaa iyo riwaayaadka qaarkood waxay tilmaamayaan uu barkintii qooyey
انت النبي هو أوي صلوات الله وسلامه عليه. عائشة وحي لهذا مركه وحنقول إلهي رسولك سيو ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إلهي رسولك سيو محاكا أو هنية إيادو إلهي دنبقاقي هراء إياد دنبقاقي دنبابا دافي. يعني وحي نهراء نقانين عائشة حديث كلا كنت المامس الصحيحة إنه النبي قصد الصلاة قلت أقنا قمدوه براري تشيرين وأي كنت إلهي رسولك سيو هدي إلهي دنبقاقي هراء كي دنبابا دافي ما نستي أو نبي كل يا فلا أكون عبدا شكورا أدون ما هذا قميانا نقوني وقتي كان مركا قم تبرر كما هذلش وحكى هذلش وحنا أو النبي كتب صلوات الله وسلامه عليه دبتنا وحي تري إلهي رسولك سيو محاسدا كاغو أو هنية يدو إلهي دم بقاقي هوري يحكي دم بابا دافي وحنا النبي كويدا عليه الصلاة والسلام نينك السؤال ويديني يا بلال وصلاة الصبح رباين وشيء النبي عليه الصلاة والسلام بأصل قال وعين كان كله عايشة الرواية دي وريني سامركا بلال بو مركا النبي وحكوري ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي بلال هو قم حيدي دي إن أويو وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آيات كاسبو أخرية النبي عليه الصلاة والسلام إيادو حلي قرآن كان يقصوا دقيب النبي عليه الصلاة والسلام مركزوا هدنا النبي يقول ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هوق وحو سقناده ابو النبي عليه الصلاة والسلام نينك أخرية أنك فكرين waxay isweydiinta le waxayna odhan karnaa maxaa nabiga habeenkan u muuqday salawaatu ullaahi wasalaamu calayh maxaa sababay inay oohintiisu gadhkiisa ka dareerto maxaa sababay in guntigu qoyo maxaa sababay in dhulku qoyo maxaa sababay in barkintiisu oohin la qoydo bukaagu ama oohintu ma wax qurux badan ba maxaa sababay saxaabada in la yidhaahdo midkoodba aayad qur'aana habeen siduu ugu celcelinaya waagu bariya isagoo ooyaya maxaa sababay inay isxijin kari waayaan nabigu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh isagoo ilaahay u ballan qaaday walasawfa yucطiika rabbuka fatardaa in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu siin doono wuxuu u baahan yahay aakhiro oo dhan uu raalli noqon doono iyadoo ilaahay leeya innaa acطaynaaka alkawthar ayaanu ku siinay isagoo alla leeyahy subxaanahu wa tacaala iyadoo aynu wada garayna xadiidkii saxiixu muslimka ku yaalay ee uu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa markuu ka warwarayay akhriyey sheegayay inuu nebigu xasuustay aayaadkii qur'aan ee uu nebiyullaahi ibraahim iyo nebi ciise ay akhriyeen in tucadibhum fainahum cibaaduk wain takfir lahum fainaka anta alcaziizu alxakiim faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim wuxuu nebigu xasuustay ambiyo qoomamkoodii ilaahay u baryaysa subxaanahu wa tacaala ambiyo qoomamkoodii ilaahay u baryaysa oo leh ilaahay u ciddii raacdana waa iga mid kuwa ay caasiyana fainaka gafuuru raxiim ama la in tucadibhum fainahum cibaaduk markaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddiisa ilaahay u baryay allahuma ummatii allahuma ummatii allahuma ummatii buu ku celceliyey nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidku siduu tilmaamayo ilaahay baa jibriil u soo diray oo wuxuu yidhi alle subxaana wa tacaala isagoo og wuxuu nebi maxamed la warwarayo ayuu jibriil la yidhi soo weydii nebi maxamed maxaad rabtaa dheh jibriil baa weydiiyo maxaa kaa oohinaya buu ku yidhi wuu u sheegay nebigu calayhi salaatu wasalaam jibriil warkiibuu alle u geeyey ilaahay wuxuu ku yidhi jibriil waxaad ku tidhaahdaa muxamed innaa sanurdiika fii ummatika walaa nasu'uk ummaddaada waa kaa raalli gelinaynaa oo kugu xumayn mayno ولسوف يعطيك ربك فترضى بها لله سبحانه وتعالى إذن إسقوا النبي عليه الصلاة والسلام آخرين بدبادية إلهي وشاقي إسقوا أمدي سيدتك الرعسان إلهي سبحانه وتعالى إن الله حمين إن الله شاقي هدنا وأوي حين لنا قفك مؤمن كاي
wuxuu ooyaa markuu xasuusto cadamata rabbi iyo cidduu hor taagan yihi wuxuu xasuustaa marka uu xasuusto ilaahay wuxuu nimco siiyey iyo qusuurkiisa gaabnidiisa wamaa bikum min nicmatin fa min allah ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala wax allaaliya waxaa nimco haysataan ilaahay bay ka timi subxaana wa tacaala washkuruu nicmat allahi in kuntum iyaahu tacbuduun markuu qofka mu'minka ee xasuusto waxa ilaahay nimco uu galay nimcadu qofku haddii aanu ilaahay si fiican ugu xidhnayn ma xasuusto insaankuna waxaa caadadiisa ka mid ah nimcada markuu waayaa buu gartaa soomaalida waxay ku mahmaahdaa maxay ciidan yar iyo calaf yar bay idhaahdeen marka la waayaabaa la tabaa insaanku inta badan markuu ku jiro nimcada inuu nimcaysan yahay ma garto waayo min طabci اlinsaan waxaa ka mid ah intuu hayaa uma muuqata inta ka maqanba qofka bini aadamka u muuqata waa طamac insaanku inta markaa agtiisa taalla way la yarta waxa warwarkiisa iyo hamigiisa ku jira waa inta maqan iyo siduu u xasilin lahaa laakiin intan taalla maalintuu waayaa buu gartaa inuu shalay tooshow sidii lagu jiray wanaag bay ahayd buu yidhahdaa shalay sidii aad ahayd wanaag bay ahayd insaankuna maba dhargade laakiin insaanka mu'minka ah wuxuu gartaa waxa ilaahay nimco siiyey subxaana wa tacaala wuxuu gartaa sida uu nimcaysan yahay yacni nimcooyinka ilaahay ku siiyey haddaad garato maxaa u yar yacni ayu shay aad soo qabato meel kale haddaanad ka fekerin haddii ilaahay ku yidhaahdo ishaada waa lagu siiyey adigu ilaasho oo nadiifso maad kari karteen ishaada nadiifso haddii lagu yidhaahdo waayo ishu markay cabbaar socotaba ee laydhu ku dhacdo way engegtaa cabbaar markaad socoto dee dabayshan iyo boodhkan kuwan gawaadhidana wadataan dee waydinkaan arkay markaad cabbaar socoto muraayaddu way qarsoomaysaa waxba maad aragteen haddaad cabbaar markaad socotoba aan la safaynaynin ilaahay adigu involuntary adigaan ogeyn buu kuugu talagalay cabbaar markaad iska yar socotay ishu meel haddaad yar eegtay indhuu ku xanuunaanba bidhbidh baad ka siinaysaa waa webaris rabbaaniya waa kuwii gaadhiga caynkanaad ku lahayd oo kaloo rabbaaniyo adigu aanad la soconin ilaahay baa subxaana wa tacaala kuu nadiifinaya ilmo yar baa ilaahay ku soo daynaya oohintaa yar iyo qoyaankaa yar baa engega ka ilaalinaya wixii boodha ka safaynaya dhaska iyo maxaanku idhahdaa saxarka iyo ciidda iyo waxaa kaaga duulo oo dhan marka ish kaa gasho ama waad yaro marmaraysa ama laba jeer markaad sidaa tidhaahdo ayaad odhanaysaa ishii baa liqday ishaadu maalin walba hadday wax liqayso imse sannadood bay kaaga buuxsami lahayd baad u malaynaysa tanag xashiishkan yar haddii aad ku riddo warqad yar markaad maalin walba ku riddo 4 usbuuc kadib dee wuu buuxaa haddii mar walba isha markaad bidhbidh ka siisa ay liqdo maxaad samayn lahay godkan yare isha ka dambeeya dee nin waliba markuu 3 sano 4 sano wado ayuu odhan lahaa way iga buuxsantay meeshii xashiishka lagu guri jiray laakiin habeenkii intaad iska seexato ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ishaada si aan u xagxaganba xanjo yar alla ku duubaa dabeetana habeenkii markaad gamaadaanba halkan alla ka soo tuuraanu subaxuunbaa tidhaa xabajadaan iska maydhaya ma ogid wixii xashiish meeshaada ku jiroo dhan inta ilaahay kuu soo safeeyen haddana halkan lasoo dhigay oo laga soo saaray maantii oo dhan waad kusii guraysay habeenkii markaad jiibsatayna ilaahay uu soo celiyo halkan bay timi yar baad subaxii iska maydha adigoo leh xabajadaan iska maydhaya yacni waxa ilaahay nimco ku siiyey subxaana wa tacaala waxay idhahdaan caafimaadku waa taaj bay idhaahdaan waa crown waa bahalladan boqorradu gashadaan laakiin wuxuunbaa arka bay idhahdeen almarda waa taajun cala lasixaa bay idhahdeen waa taaj saaran dadka caafimaadka qaba laakiin taajkaasi wuxuu u muuqdaa un kuwa buka waayo ninka bukaa wuxuu og yahay dhibtuu qabo qofkan buka isagunbaa arkaya dadkan caafimaadka qabaya siday u roorayaan iyo siday u ordayaan idan qofka mu'minka ahi markuu rumaysan yahay ilaahay wuxuu nimco siiyey ee ilaahay leeyahy wamaa bikum min nicmatin fa min allah hadday hawatay hadday roobtay hadday cadceedtay bal dunidana cadceeda ka soo baxayn qiyaas meeshana biyo la waayo qiyaas hawadanoo laysku cidhiidhiyo lagu yidhaahdo maalintii intaasoo goor baad neefneefsanaysaa inta kalena xaq uma lihid qiyaas waxaasoo nimco alla ku siiyey subxaana wa tacaala maa tadri adiga waagaa kuu baryowna waad dhaqaaqda laakiin insaanka mu'minka ahi wuxuu dareemaya waxa ilaahay nimco siiyey subxaana wa tacaala dabeetana ilaahay buu u mahad celinayaa cibaadada tani waa mahadnaq qofka bini aadamka maanta hadduu qof wax ku siiyo oo berri markuu kaa soo horbaxo haddana wax ku siiyo oo saa dambe wax ku siiyo col kastoo ahaydeen waad jeclaanaysaa way ninkan gacanta weyn lee khayrka qaba una markuu ku arkaba hantida iska kaa siinaya gacantu waxyaaba laysku jeclaadaabay ka mid يعني عقل قرنا لا يسكما ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حقوق المام يدتك مؤمنين تهادوا تحابوا
وماتيريال لكن هذا واحد لوجي إنسان كماشوا كغياله مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام هديات كيساسية واستعلان إنسان حاضر ما لنسى إله ماله والبن معك السينية وبري بعد نمعدي سعون السو قبل دموك استاد نمعدي سكدر جيسو قفك مؤمن كي مركو إلهي ويندي سحسوسته مركو حسوسته إلهي وحن معسيي مركو حسوسته تقصير كأيو قبض فلك والله إيمان أيو مركو حسوسته مصير كالدنبية كنا إيا النار مركو حسوسته آخرة إيا ميزانية حسابية عذابية وحجرة مركو وحاصر دان حسوسته عبادة دان دنقارة وسميسة انت أصور دان مركي مسكح دي سحاضر كتهي او إلهي سورته سبحانه وتعالى عبادته دان دنقارة وسميسة ولذلك إنسان كعادي قاي هداد بحضه وما تلقوا داضو رئيس الوزراء السويدن بعد لا كل ميس ديل ولا appointment بعد لا هذا رئيس الوزراء السويدن وحلقة يا بينات كيف فكرت كو سلانتي يقول أنت تكون نقطين ترى بلدرك يجي هرت أجا جو سور كي عين كوا كحبوش راي واحد وجهرين كفكريسه بل مظهر كاغو سيدو اكان دونو صاد موقال كاغو سيدو نقون دونو markaad soo taagi doonto ninka madaxda meesha haysta aad ku warwar gelinis mar labaad waxa ku warwar gelinaya talo maxaad ku tiraahdaa waxa laga yaabaa caawo dhan ama saako dhan inaad isku sii dududo hadalka sidaad u oran lahayd xagaad ka bilowdaa xagaasaad ka bilowdaa waxa saad tiraahdaa saad ninkan saad ula hadasha waayo insaankan baa kula weyn maadaama aad sileedahay qof magac iyo maamuus kula bulshada dhexdeeda ama mujtamacaad la nooshay dhexdiisa aad soo taagaysaa waxaad in badan ka fakaraysaa saad ula hadli lahayd alfa xisaab wa xisaabaad si xisaabtamaysa famaa baaluk markaad rabbulcaalamiin soo taagayso maxaad odhan lahayd iyada ilaahay baa kuu fudaydiyo ku yidhi khuduu ziinatakum cinda kulli masjid war ilaahay marka ay soo taagaysaan ziinadiinna qaataa la yidhi quruxdaada iyo waxaad isku qorxin lahayd oo dhan ilaahay markaad soo taagayso subxaana wa tacaala qaado إلهي بكو فدوديي وحال رندونت إلهي بكو فدوديي وحكولي واقم الصلاة لذكري أقيم الصلاة لذكري إلهي ندحسط الدراديد بتسلاد نسوق تاجيس ولذكر الله أكبر با إلهي سبحانه وتعالى إذا قفك مؤمن كي مركو مسكح دي سواحا صورة مكوسو حاضرة مركوسو حاضر عدي سور تاجي يا إلهي خالقها إيه أبورتي إيه كون كان الله هاينو يهي markay kugu soo xaadirto ilaahay ku nimceeyo waxaanu nimcaa ku siiyay inuu yahay markay kugu soo xaadirto waxaad sameynaysaa iyo gabood falkaaga iyo nuqsaantaadii oo dhan idan tabki amaam Allah subhanahu wa ta'ala waxay keensanaysaa qofka mu'minka ah inuu ilaahay isu dhul dhigo subhanahu wa ta'ala marka aad xasuusato ilaahay weynidiisa ta'ziiman wa ijlaalan li rabbil alamin waxay ahaayeen markaas saxaabadu sidoo matraf taabiciga la oran jiray anabi uu ka warinayo xadiidkii أبي داود ورني الباني وتصحيحنا يا رحمة الله عليهم أحمد يترمذي ابن حبان ابن خزيمة دمان تودي صارين وكي مطرف ولاي أبا وحي يقولي نبي عليه الصلاة والسلام بانركي رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى من البكاء وفي رواية النسائي ولجوفها أزيز كأزيز المرجل isagoo nabigu calayhi salaatu wasalaam guuxa iyo reenka laabtiisa ka yeedhaya oo hindaraaddeed uu guuxaya yani waxa uu tilmaamaya nabigu calayhi salaatu wasalaam maalan salaadiisaasi markuu rukuucayo waxyaabuu akhriya waxaa ka mid ahaa ee sunnada inoogu taala allahuma laka rakactu wabika aamantu walaka aslamtu khashaca laka samcii wabasrii wamukhii wacadmii wacasabي يعني ألفاظا تصور نبي محمد عليه الصلاة والسلام والركوع سنة إلهي لا هضلية ولا إلهي يوحى كود اللوبي أو سكر الدقية مقل كيغا أرقيغا لفهيغا أعصاب تيدا ضمان تيبان إلهي يكو سكر الدقية ولذلك من النبي عليه الصلاة والسلام إلهي وحكم قال يشري اللهم إنا أعوذ بك من قلب لا يخشى حديث كتير مدينة السايبة ورنية إذن إخوتي في الله خشوع كان هي عبادة تاني ردن قارة وحولا بايحي ردن قارة إنه يقول هيدو حيدا كقفلا حديث كان معروف غزوة ذات الرقاع حديث جابر بن عبد الله
حديث أبو داود يا إمام أحمد يا بيهقي في الدلائل أنتم بوي صارين الباني أبي داود كوكو تحسينين يا ابن خزيمية بن حبان يا حاكمنا يقوي تصحيحين ينبا على كل حال حديث كاسيوح شيء يا دقال كي ذات الرقاع لورنش ريمركي لقى صور نغضي أيام مشركين تو حكم دهانين سببت الضونبا روايتك أسباب كلا قد سنبي شيئان لكن أيا كانت نين كل دارتي إنا نتميه ساما بشركي سبيا مرين إلا ينو مسلمين توحك صلى الله يمويان روايات كقاركود وحيلين هوينتي سبا كم دايدتك سبيا قالوا سوقات روايات كقاركود وأرمك على المامية على كل نينك كان وحو كل دارتي إنو مسلمين تينو وحيين لا يمويان إنا نقنين مع ذلك هو واجهي كرواي marka uu daba galay wuxuu ku tala galay inuu eegto waqti aan diyaar loo ahayn oo ama ay seexdeen ama cayn kana dabatana intuu gaada ku sameeyo weeraro wax ka dilo ama wax ka dhaawaco inuu iskaga cararo meel laba buurood dhexdoodii bannaan yaro abu nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii dajiyay waa la degay markii la degay ayuu laba saxaabi buu yidhi gaadhka qabta inay ilaaliya saxaabadii kalena waa iska seexata لبدي صحابية قارد كهيي وصحابي مهاجرة عمار بن ياسر بو بيهق تلمام يينها ككلنا عباد بن بشر أيو بيهق كشيغي يا أنسارية لبدا صحابي با قارد كغبطي لبدي صحابية قارد كهيي أيو عمار انتو يرتشي في صدي بو يري إن أنا عبار يرتشي في صدي توسيا يسبت بدلو عمار وشيفة أيو عبادنا صلاة سكاقالي saxaabigii kalena salaad buu galay ninkii gaaleed ee gaadaha ahaa wuxuu arkay iyadoo saxaabadii badhna ay jiifaan nin qurina uu taagay ninkaasina uu salaad ku jiro haddaad cidla ka heshay buu yidhi markaa kii salaada ku jiray buu gamuunkiisa leebkiisa iyo qaansadiisii buu u hagaajistay dabeetana leeb buu ku sii daayay leebkii koowaad buu ku dhuftay saxaabigii isagoo salaadii ku jira leebkii ku dhacay dabeetana salaadiisii buu iska wata ninkii gaaleed mar labaad buu gamuunkiisii sallaxday kii labaad buu ku rideeyey kii labaad baa ku dhacay saxaabiga salaadiisii isagoo ku jira saxaabigii salaadiisii buu iska waday kii saddexaad buu u rakibtay kii saddexaad buu ku dhuftay saxaabigii isagoo salaadiisa ku jira leebkii saddexaad ku dhacay salaadiisii buu iska waday waxay gaadhay waqtigii uu rukuuci lahaa uu rukuucay dabeetana wuu sujuuday markii uu rukuucay sujuuday ee ninkii dhaqdhaqaaq sameeyuu ninkii gaaleedna isiri wakaasoo waxbuu dareemo dee wax arag dib buu isna u faagtay saxaabigii jiifay isna waxbuu dareemo dhiiggii kan ka dareeray baa toosiyey baa la yidhaahdaa muhaajirigii wuxuu arkay ninkii ansaariga waxa kan dhiig ka dareeraya wuxuu ku yidhi markaas subxaana allah alaa anbahtanii awala maa ramaa war maxaad ii toosin weyday buu yidhi markii koowaadee gamuunka koowaad markuu kugu dhacay gamuunkan koowaad markii lagugu dhuftay maxaad markaa ii toosin weyday buu ku yidhi wuxuu yidhi kuntu fii suura aqra'uhaa falam uxib an aqtacaha suurad qur'aanaan akhrinayo waxaan necbaystay buu yidhi inaan kala gooyo qur-aanka imaam albayhaqi wuxuu leeyay suuratu lkahf buu akhrinaya qur-aankaas uu akhrinayaa la macaanaa waxaasoo nabaroo ku dhacayna kala macaanaa waxaanu leeyahay macaankaas iyo qur-aanka aan wada inaan kala gooyo ayaan necbaystay dabeetana gamuunnada inaan u adkaystaan ka doorbiday in qur-aankaygu iga kala go'o yacni waxaan dhadhan bay u samaynayaan qofkan walidaalik bay macaan la lahaayeen uu ka doorbidayo xanuunkuu leeyahay warmaha lagu ganaya